السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع ونكسل رمضان كريم. إن كستو أن لبضا المعمود لصدع فأن كلام مشغولي حدنا وارسكسوا المخالي وحن هل كان إذا كسو قدونيني مروليبا برنامج أن أقوم قعدرني حلقة كويسكا حدر وحن دونينا إنان إذن سو قدونو شان قضب oo aan qodobadii hore idinka ballan qaadnay kamid ah. Assalaamu calaykum marka hore waxaan rabnaa in aad shantan qodob aad kala baxdaan waxyaabo fara badan oo qoyska quseeya. Qodobka koowaad wuxuu yahay ninka iyo naagta isqaba ama wada nool ama guriga ku wada nool hadday rabaan caruur akhlaaq leh oo wanaagsan oo xishmeeya in ay dhalaan ama ay barbaariyaan marka ugu horeysa horta caruurtooda hortiisa yaysan khilaaftooda iyo buuqooda ku muujinin, waayo caruurta hadday waalidka isku hor dagaalaan ama ha yaraado ama qaangaar ahaado caruurtaas buuqaas aad ku hor buuqdeen wuxuu noqonayaa barbaarin qaldan, mar walibana noloshooda dambe uu saameynaya. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, ninka iyo naagta mar walba waxa mas-uuliyadda haya ninka, laakiin dumarka waxay leeyihiin mas-uuliyad ka weyn tan ninka ah oo xaafadii caruurtii maalkii wax walba in ay xanaanayso macal nafteeda. marka waxaa laga doonayaa dumarka in ay xanaaneeyaan caruurtooda, ninkooda iyo gurigooda iyo naftoodaba, waayo wax badan waxa cilad ka timaadaa mas-uuliyad darada guriga ee dumarkan ma haddii mas-uuliyad dara gurigooda ay ka keenaan 90% waxaa meesha ka yimaada qoys burbur. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad, waxaan la hadlayaa dadkeena Soomaaliyeed ee dibadda ku nool ee isqaba. waxaan aragnay qoysas badan oo ku burburay waqti yar, waxaana keenaya dumarka ku nool dibadda ay barnaamijyada waxa ku xiray dad wadamada ay ku nool yihiin in ay gabadhu tahay xur. gabadhu waa xur, laakiin xurnimadeedu waa nooc. xuriyadda ayaa gabdhaha Soomaaliyeed dibadda ku nool isaga dhex tarsantay. xuriyadda lagu sheegay bini aadam baa tahay, adoon ilaahay baa tahay, ilaahay baa ku leh, bini aadam ma kuma lahan, ilaahay baa ku leh. xuriyadda lagu sheegay waa sidaas. waajib baa ka saaran qoyskaaga iyo ninkaaga iyo caruurtaada. waajibaadkaas waa in aad ka soo bixi kartaa oo ninkaaga amarkiisa aad qaadan kartaa, meeshuu kaa reeban inaad ka hartid, meeshuu kuu ogolaado inaad aad. laakiin xuriyadda maahan meeshaan doonaan aadaya cid aan amar ka qaadanayo ma lahan. ninka ragga bahatuu arko inaad amarkiisa khilaafaysid, amarka aad ku khilaafaysin uusan ahayn mid diiniyan, ninkaas 90% go-aan wuxuu kaa gaaraya inuu kaa tago, uu iska kaafisa. waa qodobka saddexaad. qodobka afaraad wuxuu yahay inta badan dadna wuxuu ku socdaa qodobkan ragga iyo dumarka ee dibadda ku nool. qodobka afaraad wuxuu yahay inta badan markii la kala tago oo ninkii naagta kala tagaan waxaa cilad ku timaada caruurta. horta waxaad ogaanaysaa caruur hooyadooda iyo aabbahooda kala tageen ama dibadda ha ku noolaadaan ama dal ha ku noolaadaan, caruurtaas dayac ayaa ku imaanaya. dayaca aan kuu sheegay maahan naceeb caruurta loo qabo, ee waa ayaga shakhsiyan caruurta waxay dareemayaan ciriiri. haddii hooyadooda iyo aabbahooda kala maqan yihiin caruurtaas waxay dareemayaan ciriiri. maxaa keenaya marka in caruurta ay ciriiri galaan? waxaa keenaya hooyadii waa qof dhalinyaro ah, waxay doonaysaa in nin kale la sheekaysato, nin kale guursato,
ninka raggana inta badan mas-uuliyadda carruurta ma qaadi karo carruurta mas-uuliyadda wuxuu ku qaadi karaa asiga in carruurta loo hayo oo asiga ku biilo laakiin carruurta noloshooda inta badan hooyooyinka ayaa qaadi kara waayo waxay jecel yihiin iyo waxay necab yihiin hooyada unbaa kala taqaana marka ragga dibadda ku nool waxaan leeyahay gabadh waa walaashaada hal meel baad ka timaadeen waddanka aad joogtiin waddankiina maahan waxaad ku tihiin qaxooti ama baasboor hayso ama haysanay qaxooti baad marka waxaa loo baahan yahay in gabadh walaashaada aad u samirtid aad waanisid cajaladaha diinta usoo iibisid xuquuqda ninka inaagta isku leeyihin aad usoo iibisid ood u shidid ood dhegaysiisid adigna afka aad kala hadashid laakiin maahan inaad adiga xanaaqaaga oo keliya aad fiirisid oo gabadha iyo carruurta isku dayacdo waayo waxaan aragnay gabar carruurteeda lagu dayacay carruurta mas-uuliyadda ay qaadi weyday ama ay ka soo bixi weyday xagga gaalada dee annaga islaamka haddaan nahay gabadha carruurteeda xaq way u leedahay inay barbaariso oo dhib iyo rafaad intaba la marto gaalada waxay ku leeyihin carruurta waxay doonaan haddaadan sii karin waa kala wareegina marka dad badan naaga badan aan aragnay baraha bulshada ka ooynaya barooranaya dhahay carruurteeda lagala wareegay marka ciladaas nimanka ayaa iskale gabadha haddaad furaysid ood kala tagaysaan waa in xal aad u keentaa carruurta iyo noloshooda ku ogaataa waayo gabadha waddankeeda ma joogto waa qasab in ay shaqayso carruurta ayaa meesha ka baxaya marka noloshooda marka waxaan idin leeyahay ha laysku sabro ha laysku dulqaato waddan shisheeyaa la joogaa ha laysku sabro ha laysku dulqaato waa qodobkayga afraad qodobka shanaad waxaad arkaysaa hooyo iyo gabadha wiilkeeda oo qabo ishaysa waa qoys burburka meeshuu ka yimaado waa inta badan hooyo waa hooyo dhibaato ma leh xaq bay kugu leedahay haddii ninka uu naagta guursado hooyadii asiga dhashay iyo hooyada xaaska uu qabo uu guursaday waa isku mid xaquuq waa isku mid waayo waa hooyadiis tanna waa hooyadiis marka dumarka Soomaaliyeed ama hablaha Soomaaliyeed sharafta leh inta badan waxay la xifaaltamaan hooyada wiilka qaba dhashay saddexdeeda marka waxaad ogaataa qof doonaya ma jirto hooyadiis in la naco ama la xifaaltamo ama wax xun laga sheego waxaad ogaanaysaa ninka si kasta uu ku jecel yahay haddii hooyadiisa xumaata ka sheegtay ama adiga aad xumaanteeda ka talisid ninka wuxuu 90% qaadanaya inuu ku fasaxo wuu jiraa mid xanaagaha u dulooba oo hooyadii in wax laga sheego aan waxba u arkin sidoo xaaskiisa ula noolaado laakiin 100% waxaa xaqiiqa ninka ragga xaq hooyada ka soo martay inuu kala tagaysa adigana waxaan ku leeyahay hooyada waajiba ka saarantan ku dhashay ay la mid tahay ninka adiga carruurta u dhalaysay ayaa ay dhashay ninka waan jeclahay hooyadiisna waan nacaya aqli galma mid aan la yaabay dumarkeena Soomaaliyeed aqliga ku jiro ninka waan jeclahay hooyadiisna waan nacaya inta isla gashaa ninkan asiga yaa dhalay asiga ka hor adiga macnaa adduunka ma baj imaan lahayn asiga hooyadii ayaa sabab marka waa inaad hooyada ka ducaysataa waajib baa kaa saaran ninka raggan waxaan leeyahay inta aad kala badbaadin kartid hooyadaad iyo xaaskaaga kala badbaadi oo kala fogay haddii isfahmi waayaan xalka koowaad furin oo keliya maaha waa inaad kala fogaysaa laba meel kala digsaa labada qof markay kala fog yihiin xiise badan ayaa ka dhaxaynaya booqasho badan ayaa ka dhaxaynaysa laakiin markii la isku hoos jiro cilada inay yimaadaan iyo isku dhac waa laga yaabaa marka qoysaska waxaan leeyahay la isku sabro waajibaadka hala guto waalidka hala xishmeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim